بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkeena waxbarashada ee maanta aan ku booqnay dugsiga hoose dhexe ee Maamun Dahabi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وما هتسنتهين خيارة شرفت لي ما شاء الله قصوا باقتي كسعة تيفي سهل كيبل تيفي أنا جوا معمول كدكسيجه هو صدق يسرى إمام الذهبي وحنا دكسة دوينا نجع مفرن يقلب فرن إمام الذهبي وسكول كيني وأنا سكول صوماليات واحد حلقوا برانا وعرضي صوماليات إذن كنا كل سنة شينيو waxaad u shaqeynaysaan waa bulshada marka waan iska ashanaynaa aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa soo booqashadiina iyo waqtiga noo soo bixiseen wallahi horta waa su'aal muhiim ah waxyaalaha nagu kalifi karaana way badan yihiin laakiin waxaa ugu muhiimsan in anagu nahay dhalinyaro wax baratay oo dhalinyaro u baahan inay xoogoodii iyo awoodii ay hayeen ay ku celiyaan wadankooda ay soo saaraan jiil cusub oo ku dadaalaan inay ayagu noqdaan kuwa laga faa'iido miro nacfi leh marka sababta ugu kalifay waxay ahayd dalkii oo u baahan waxbarasho gaar ahaan xaafadii anaga aan ku noolayn iyo degmada aan ku noolayn oo aad waxbarashadoodu iskuulada ha bataan laakiin aan anagu dareennay in baahi jirto in anagu aan wax soo kordhino aan la soo kororno tayo iyo dadaal intaas aan shaqada wadnay waxaan arkaynay dad badan oo noo soo imaanaya meelo fog ka soo guuraya qaarkood oo xaafadda markay soo degeen laaya iskuulka waxa ku nimid tilmaan waana loo soo tilmaamay tayaan lakugu soo tilmaamay macallimiin baan lakugu soo tilmaamay kolleyto macallinka waxa ka warbixin karaa ama iskuulka waxa ka warbixin karaay waxa weeye bulshada uu ku dhex nool yahay ama bulshada uu wax barayo waalidka ilmahooda wax la barayo ayaa ka warbixin kara marka annagu waxaan isniri haddii aad wax tayeyn kartaan ku dadaala inaad bulshadiina wax ku tayeysaan ilaa xadna ahdaaftii aan u furnay iskuulka waan in badan oo kamid ah waan gaarnay in badan oo kamid ah higgs baan ku jirnaa weli ma aan gaarin insha Allah inaan gaari doono ayaa rajadeenu tahay iskoolku qaybo waa leeyahay kale oo dugsi dhexe iyo dugsi hoose iyo bareefadyo qaybta ugu weyn waa qaybtan oo dugsiga sare ah iyo dugsiga dhexe qayb kamid ah sideedaad iyo halkan waxa weeye dugsi sare bas manhajka dawladdu soo saartay waxaan isleenahay annagu waxaan soo dhignay manaahijtii hore loo dhigi jiray waa soo dhignay manaahij sax oo wadanka ka turjumayana ma ahayn kuwii hore hadda manhajka la dhigo kan dugsiga dhexe oo sanadkii hore soo baxay boqolkiiba boqol waa la riyaaqnay aad baan ula dhacnay noo la riyaaqnay baa haddana waxaa la soo saaray kii dugsiga sare asna waa la riyaaqnay sida loo diyaariyey iyo sida looga fakeray iyo sida uu u baysgaraysan yahay manhajku waxaa laga fiiriyaa ma ahan casharka ku qoran kaliya habka uu u socdo oo manhajku siiqa ahaan ardaygan markii laga bilaabo koobaad ilaa form 4 macallinku wuxuu qiyaasi karaa markuu manhajka uu fiiriyo ardayga ka soo bixi kara nuuca uu yahay ardayga ka soo bixi kara waa arday akhlaaqiyan iyo wadaniyan iyo aqoon ahaan intaba dhisan ayaa ka soo bixi kara markii aan eegnay manhajkan maanta hor yaala hadda kan waa fasalka koobaad ee dugsiga sare oo form 1 iyo fasalo badan oo fasalada anagu hadda manhajka aan ku shaqeynay min koobaad ilaa form 4 waa kii dawladdu noo soo saartay aad baan ugu faraxsanahay inay xataa jaamacadaha wax ka bedelaan manaahijta ay ku shaqeynayaan ayaana kula talin lahayn wasaaradda aad baa mahadsantahay wallahi hadda taasi dhaxda ma taal inay jirayaan dhaxda ma taalo bulshada aan ku dhex noolnahay waa bulsho Soomaaliyeed oo Soomaaliya kula hadlayso duruufo kala duwan leh xaafadda aan deganahana waa xaafad inta badan dadkeedu laga yaabo inay isku dhex jiraan kuwa wax haysta iyo kuwa wax haysan waxaan ku khasbannahay marka kii wax haystana wuxuu haye oo sharciga ah inaan ka qaadno kaan wax haysanna inaan duruufta la wadno oo aan ka taxadarno in arday Soomaaliyeed uusan sabab anagu aan leenahay awgeed isguriga u fariisan sabab anagu aan leenahay oo ah lacag ma bixin inuu isguriga u fariisan intaas ka taxadarnaa inta badan
waana ku dadaalnay waana ku guulaysanay arday aan isleeyahay 100 arday ku dhawaad 90 iyo dhowr arday ayaa iskuulka free ku dhigata iyo free wax lamid ah arday dugsi sare oo lacagtii laga qaadayay aan dhiibayna $4 iyo $5 oo lacag la yiraahdo charger bixinaya ma bixin waxba ma bixin way u dhigantaa sababta marka anagu hadafka meesha u furnay ma baahan qarash hadafkeenu qarash waa ka guda weynaa hadafka anagu u furnay wuxuu ahaa in meeshaan aan ka soo saarno miro wax tari kara bulshada marqaatina waxa ka afaan farq u horeeyay iskuulka ka qalin jabiyay hal arday kama dhicin alxamdulillah aydka hadda galay qof ya laba dhacay arday 80 arday ku dhawaada baa taxaan ka gashay ayd qof ya laba dhacay hadda waan malaynayna anagu 100% inaan la guuleysanayn laakiin waxa isleenahay 99% waa guuleysateen form 4 ka natiijadiis waan sugaynaa waxaan rajaynaynaa 100% inay guuleystaan oo ay kulli wada baasaan taas marka waxay ku tusi kartaa habka tayo iyo nidaam ahaan macallimiinta meeshaan joogaa iyo maamulka halkan joogaa ay ku bixiyeen ardayda qarashna ma fiirino kuwa hadda qalin jabiyay sanadkan kuwa waxa kamid ah aan maanta form 1 noqdeen ilaa maanta aan $1 nasiib waalidna ana qaarkood waalidkii dhalama naqaan ardayga noo yimid waxbaan rabaa inaan barto waxna ma haysto waalidkeena waa reer gobol ama waa reer miyi duruuftii waan ku qaatay waxaa laga yaabaa hadda waxaan ardada la kamid ah arday koobaad anagu aan uga bilownay koobaad markaa uga bilaabaynana anigoo maamulaha ii yimaadeen waxay igu yiraahdeen maamulo gobol baan ka nimid waxba ma haysano waalidkeena dhalay gobol bay baadiyahay degan yihiin xoolo yar bay dhaqdaan waxna ma haystaan dad qaraabaha la noolnahay waxna inay naga dhiibaan ma rabaan sayelna min koobaad baan uga bilownay hadda ardadaasi foomon bay fadhiyaan sanadkan foomon bay fadhiyaan aydkii ka soo gudbeen marka hadafku ma ahan qarash ee waa in la soo saaro dad tayeysan qarashku waa iska imaan doonaa wallahi hadda iskuuladu inta badan horta waa iskuulo iskool walba waa iskuul waxaan wada dhigaynaana waa manhajka ayaa wada dhigaynaa marka laakiin waxyaalaha lagu kala duwan yahay waa hab dhaqanka macalinka iyo maamulka waxaan nagu aragnay waalid ilmo agoona wata iskool annaga xaafadeena ku yaallaa u tagay u dhiganayeen dhowr bilood markay dhiganayeen lacagtay bixi waayeen lasoo ceyriyey annagu aan hayno firiina aan ku hayno hadafka marka annagu aan u furnayna waa inaan arday soo saaro waxaa laga yaabaa iskuullada qaarna inay u fureen inay lacag soo saaraan marka lacagta waxaa ka muhiimsan ardayga qof bini aadan wax la maalgelsado qof bini aadan ugu muhiimsan taasna miraheedu annagu ma qeexi karnee ardadii inaad dhex gashaan oo ardada weydiisaan oo arday waa arki doontaan kuwa firiya arkaysaan kuwa lacag dhiiba arkaysaan kuwa nooc walba ilaa iskuulka hay-adii dawlad ma fangareeyaan waxaanu macalinka siinaa waxaa ardada ka qaadno laakiin ardayga aan ka weyno waan tixgelinaa inaan tabarteena frintaa u dirayaa kow waxay tahay waalidku inay ilmaha ku dadaalaan dhinacooda uga dadaalaan inta badan waalidiintu cunuga ayagaa lumiya kadibna way ka shallaayaan oo waxaa arkaysaa waalid ku dhahaya cunugayga kanuu ka qaldan yahay tanuu ka qaldan yahay halkanuu ka qaldan yahay markii horena waxaa laga yaabaa asaguna abaaminta ka hadleeyay oo markuu cunugu yar yahay uu faraha ka bixishay uusan la xisaabtamin uusan wax u dirin uusan maxay ahayd akhlaaqiyaadkiisa foodiisa fiirin habka u labisanaya fiirin ciduu la cayaaraya fiirin laakiin uu fiiriyey calooshiisa inuu buuxiyo uuna dharkiisa u nadiifiyo kaliya taasna ilmuha wax kuma bartaan marka muhiimadda waxay tahay waalidka aan u dirayo ilmaha ka fakera mustaqbalkooda ha ka fakerin calooshooda kaliya ka fakera mustaqbalka wuxuu ku jiraa in cunugu sida u labisanayo sida u dhaqmayo iyo ciduu la dhaqmayo iyo ciduu la noolaanayo iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo timuusa u xiiran yihiin iyo dharkiisa u gashan yihiin inay aragtid ardada waxaan kula dardaarmayaa inay wax bartaan oo dadaalaan oo ay hiigsadaan meesha facood hiigsanayo ay hiigsadaan annaga ahaan maamul ahaan waxaan u ballan qaadaynaa arday noo yimid inuusan nagu shallaayin tabarteenna arday noo yimid inuusan nagu shallaayin ee uu wax fiican oo dhaxalgala uu ka barta meeshaan ayaan ku dadaalaynaa wax kastoo naga qaldan nafteenna iyo shaydaan bay ka ahaadeen wax kastoo noo saxsanna ilaahay baa na waafajiyey بسم الله الرحمن الرحيم مقعي حسن محي الدين شيخ حسين حسن بسام waxaan ka mid ahay macallimiinta iskoolka Imaam Dahabi Primary and Secondary School waxaana dhigaa maadooyinka History Geography
oo hadda ku baxa afka hooyo ee afka Soomaaliga. Run ahaantii macallinku waa waalidka labaad waana barbaariyaha ubadka. Run ahaantii waxaan isleeyahay tacaamulka dhexdooda ah macallinka iyo ardaydu waa mid aad u wanaagsan waliba qaasatan aniga markaan iska hadlana ardaydu uma ihi macallin kaliya waxaan u ahay waalid waxaan u ahay walaal waxaan u ahay saaxiib. Run ahaantii waxaan isleeyahay iskoolaad kale wuxuu uga duwan yahay meesha waxaa wada jooga maamul iyo macallimiin iyo arday waliba isjecel. midda kale macallimiintu oo meeshan wax ka dhigta waa macallimiin ardayda u ah waalid oo walaal u ah oo saaxiib ah taas baan uga duwanayaa isleeyahay. midda kale waa macallimiin tixgeliya ardayga had iyo jeer waana macallimiin la socda fahanka ardayga iyo waxa ay dhigayaan ayagoo dhinacyo fara badan u eegaya. midda kalena macallimiinta meeshan wax ka dhigta oo aniga aan ka ahay waa kuwa had iyo jeer ardaydii dhiirigeliya. ardaygu waxa uu wax ku yahay waa dhiirigelin si ay midida soofa ay ugu baahan tahay buu ardaygan wuxuu u baahan yahay macallin dhiirigeliya taasaan uga duwan. runtii fariintan ardayda aan u dirayo waxay tahay aqoontu waa shayga kaliya lagu horumaro. marka waxaan dhihi lahaa ardayda halkan ka sii wada aqoontiina ilaa aad ka gaartaan meesha ugu dambaysa waxbarashada. kolley waxbarasho ma dhamaataa la yidhi laakiin inkastoo naf ay kugu jirto waxaa loo baahan yahay inaad cilmiga aad ka miro dhaliso insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد عبد محمود كلت waxaan kamid ah macallimiinta dugsiga Imaam Dahabi maadooyinkayga majorka aan bixiya waxay yihiin waa chemistry-ga aan ka bixiya iskuulka dugsiga sare dugsiga dhaxna maadada technology-ga iyo cilmiga bulshada aad iyo aad waa su'aal aad u muhiim ah xiriir ka dhaxeeya ardayga iyo macallinka waa xiriir runtii aad u wanaagsan sababtoo ah macallinku wuxuu taagan yahay booskii waalidka markii la joogo goobaha waxbarashada cunuga waxaa soo barbaariyay hooyo iyo aabe ay waalid baa soo barbaariyay macallinkuna wuxuu taagan yahay booskii aabihii iyo hooyadii markii la joogo xarunta waxbarashada iyo meel walba uu joogaan macallinka waxaa laga rabaa inuu cunuga istaago meeshii booskii waalidku ay ku jireen arday runtii waa su'aal muhiim ah ardayda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan iyo darajo kasta ay joogaan waxaan leeyahay qof walba asiga ayaa wax iska dhigi kara asiga wuxuu iska dhiga ayay wax aad ku tahay qaasatan waxaan fariin leeyahay kuwa qalin jabiya kuwa sideedaadka iyo kuwa dugsiga saraba ka qalin baasaya waxaan leeyahay waxa idinkaga baahan yahay dadaal dheeraad ayaa idinkaga baahan yahay insha Allah arday walba Soomaaliyeedna waxaanu rajaynaynaa inuu helo natiijo oo ku farxa inuu helo ayaan u rajaynaynaa duco iyo maskax iyo garab wax walba ayaynu la garab taaganaa oo karaankeena ardayda Soomaaliyeed bismillaah ana magaciigu ku bilaa Cabdullah Usmaan Xasan iskuulka ana waa ka socday fasalka Imaam Dahabi iskuulka Imaam Dahabi gaar ahaan fasalka F3 maadooyin badan ka bartaa waxaa ka mid ah geography history oo hadda dawladda noo soo yeeshay Soomaaliya waxaa kaloo aad ugu sii bartaa tarbiyada iyo carabiga waxaa kaloo sii bartaa mararka qaarna waxaa isku daynaa in taabuurada iyo hadiyada macallimiin siino oo tababaro oo jimicsi iyo waxaas oo hadda dawladda soo kordhisay iskuulku wuxuu leeyahay tayo aad u sareyso tayada waxbarasho aad weyn magacaygu waa Leila Cabdullaahi Daahir waxaan dhigtaa iskuulka Imaam Dahabi gaar ahaan galaaska F3 wax ka bartaa maadooyin aad u fara badan taariikhda juqraafiga businesska iyo tarbiyada carabiga magacaygu waa Cabdi Xuseen waxaan dhigtaa iskuulka Imaam Dahabi galaaska Fonfor waxaan ka bartaa maadooyin gaar 12 maado sida chemistry-ga Soomaaliga tarbiyada biology xisaabta Soomaaliga حسابتي الصومالية يتربية waxaan filan u dilaa inay macnaha ay si fiican u diyaargarowaan diyaaraan mustaqbalkooda heerkooda ay dhisaan bismillaah magacaygu waa Hodan Cali Cabdiraxmaan waxaan dhigtaa iskuulka Imaam Dahabi Primary and Secondary School hooyga aqoon bilaha waxaan fasalka Form 4 iskuulka maadooyin badan laga bixiyaa chemistry, biology, geography, history, Arabic, tarbiyo, English iyo in badan kuwa ka badan. Maadada biology. Marka waran sanadkan waxa tahay waxaan soo sidee imtixaan soo socda insha Allah adkeen doonaa. Kaantu koowaad rajaynaa.